ururka gaaroodi dhammaantiin waan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam kulley kelmadda wacdiga laygu soo qoray kulley dad iga mudnaabaa jiro fara badanoo suldaan aadan ka mid yahay. markaa haddana ilaahay subxaana watacaala wixii uu inaga garasiiyo baynu wax ka tilmaami doonaa. xafladeennan iyo markaa xubnahan meesha iskugu yimaadaama oo ay ururku yahay urur sadaqo iyo samafal markaa dadka loo sameeyo, waxaan laba kelmadood ka tilmaami doonaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay sadaqadu. dadku inay wax sadaqadaystaan oo ay wax la baxaan waa shay aada u qaaliya. ilaahay subxaana watacaala waa ciddii uu weliba garansiiyo. aayad qur-aana ilaahay qur-aanka waxa uu ku leeyahy kariimka waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun. qofka ilaahay uu ka ilaaliyo shayga loo yaqaano shuxa ama bakayltinimada, qofka ilaahay ka ilaaliyo waa liibaan. lama odhanin qofka ilaahay faqri ka ilaaliyo, lama odhan. waxay qofka ilaahay bakayltinimo ka ilaaliyo waa liibaan. ilaahay subxana watacaala in qofku wax la baxo oo dadka uu iska jeclaado masaakiinta iyo dadka jilicsan iyo caawimada waa shay wanaagsan. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray ilaaha waxaa ku weydiisanayaa xubbul masaakiin, dadka jilicsan aan waxba haysan ee laga yaabo inagu in muraayada ka dallacano in aan dadkaa jeclaadaan ilaahay ku weydiisanaya nebigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam. markaa in dadku wax la taro oo dadka qofkaad wax taraysaa waa qof aad ka jeeb roontay ama aada wax dhaanto weeyaan. markaa waxaan dadkaa inaynu jeclaano waa shay aada u qaaliyo oo wanaagsan weeyaan. sadaqadu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo baray, inoo sheegay dadka xanuunsanaya ee aynu dhakhaatiirta lacagta qayru macquulka xalaga qofka hebel waxa lagu daweeyey lacag $100,000 ayuu nebigu wuxuu inoo baray inaynu ku daweyno sadaqada. sheekhii loola jeedo cabdillah maalib taabici buu ahaa, asxaabta rasuulka arkay. markaa nin baa u yimi wuxuu ku niyo waxaan ka cabanayaa jirka waxay ardaydaadana aad wuxuu dhigtay faraha badanna balaadiidu ay sheekh wuxuu ku niyo tala kalena ku siinaya. wuxuu iska baxo meelaha miyiga u bax, waxaad tagtaa ano ka qod markaa waxa weeyaan meel ceel ay dadku u baahan yihin. waxaa laga yaabaa marka aad ceel kaa qodo ee biyo ay galaan ay dadku ka cadiso. sheekha aimadii taabiciinta waaweynaa ka mid aha maxamed odhan jiray ayaa wuxuu yihi sidii aanu diinta u dhiganayniba faaqaa nagu dhacday ama faqri iyo gaajo. dadna gabadhii baa ku tira war carruurtii waxba uma hayo sheekhow in aan bal akhyaarta isnaqaanin qaarkood u sheego ku dhaado wejigay ay ka dareemaan inaanan waxba hayn. kana oo saaxiibayna sheekha ama sabir maxaa ku dhacay wejigaaga waxaa ka muuqata xuma iyo markaa dhibaato. wuxuu ku waxaan ku dhigu wadiyo gabadhii iyo carruurtii waa waxba ma hayaano waa siiro weeyaan. wuxuu soo siiyey khubus oo u fiirsada ama waxa u taqaanaa saawej yaroo lagu laabay shay yar xalwad yar gudaha loo geliyay. wuxuu dadintii baan la carroolsay carruurtii aad siis waxay iga hor timi gabadh ilmo yar gacanta haysa. markaasaa waxay aragtay inaan gacanta hoosta wax ku qarinayo. waxay tiri waan arkaa alaabtaad hayso waa khubus yar, ilmahan aan gacanta hayo ma aragtaa aan kaaga warrano waa agoon. intaasoo cishana waxba muu cunin. maanta maad ka ducaysana intaa maad siin. anna kuwaygiiba hadday iga dambeeyo iyaguba aanay magaranaysa aan ka waxba dhaamin. markaa markay ku tira aabba male ayaa marna intii eegaa buuri marna igi dabeetna waa iska sii buuri. marka sii gabadhi ilmaa ka soo daadatay agoon tahay. ilmi yarana intuu qoslay u cunay dabeetna waa iskaga dhaqaaqay. ninkii soo siiyey saawijka laftiisii ayaa igu ilaa maanta nin baa ku diiday. wadhiyo tiroolkaas muxuu ah waa nin aanaan gelinayno magaalada lagu xusayo 18 guuradii ka soo wareegtay ururka gaaroodi. maantana waxaanu leedahay ururka gaaroodi wuu u baahan yahay. waxaa hor yaalla in xaggii biyaha aan wax ka qabanno. balli baanu ka qodaynaa aagga ku yaalla qoton dabo. iskuullaan halkaa yeela ka dhisaynaa. waxaanaanu ku dhisaynaa waa jeerka xubnaha gaaroodi. runtii xukuumadduna way nagala qayb gashay. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa in wasaaradda biyuhuna nagala qayb gasha hawsha ah oo ay contribution fiican deegaanka shaqadan ku wadneed iyo faainta iyadoo geysatay. aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda.
waxaan markaa kusoo gabagabeynayaa ururku wuxuu u baahan yahay kaalmadii si uu dadaalka iyo shaqada uu u hayo uu u kordhiyo si xagga biyaha iyo uu wax uga qabto xagga tacliinta labadaba iyadoo runtii culayskii badnaa aan ugu mahadnaqino xukuumadda ee nagala wareegtay haddana doolihii kale la gaadhin ayaa ururka gaarooda uu gaarayaa oo ilaa gobolka daad mareen deegaano ka tirsan ururku uu ka shaqeeyaa iskuulle cusubna deegaanada lagu soo barakacay ee abaarihii dadkii xooluhu ay ka idlaadeen ku soo barakaceen ayaa u baahan runtii iskuulle in laga suuro geliyo waanu ka rajeynaa xukuumaddu inay iyana doorkeeda ka qaadato wuxuu kusoo gabagabeynayaa ururku gaaroodi xubnihiisa uu mahadnaqayaa welina beesha ururku ka soo jeedo wuxuu uga baahan yahay taageero wuxuu mugli ayuu uga baahan yahay ganacsatadiiba meesha kusoo casuulnay runtii inay ka qayb qaataan contributionka iyo sadaqada ururka waxaan kaga baxayaa bada xubnihii guddoomiyayaasha ka soo noqday ururka halkan kelmado ka oran doona sida maxamed degawey oo kale iyo fundraiska uu wakiil ka yahay cabdikariim calbaasheex intaasaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gacantiisayba aad baan ugu mahadnaqayaa midhihiinina waa la gurtay waa la arkay bariyo galbeed baa dadka amatashaan waa laydin og yahay ilaahay waxaan ka baryayaa dadku wuxuu nagaga horan maray ururadaa samafalka ayaa laynaga badsaday innagu waxeenu waa intanan waddanka soo gallay dadka kale 60-kiibuu bilaabay beeraha kalena meesha la naabaa ururada noocan oo kale 60-kii bay bilaabeen guryaha la kireeyo qabiilka loo magacaabo berigaasay bilaabeen innagu ka daba tag baynu nahay mid oday baldhoosa dhintoo la odhan jiray ismaan gabayga ayaa gabay dheeg tiriyo wuxuu yidhi ku hadhaada dheego intaad neegsanaysa intaad neegsanaysa wax walba gaaraba isleedin bay xagga ilbaxnimada iyaguna waxay naga hegsadaan oo naga daba galaan oo naga gaadhayi waa jiraan xagga ilbaxnimadu igu faanay waxa weeye aada iyo aad baan ku mahadnaqayaa anigu waan idinka gaabiyayo kama qal mooyaane waxtarkayga maan lahayn waxtar fiican haddii aan la idhaaho insha allahu tacaala iminka ay tirsan doontaa wax ilma ka dambeeya waana xafladii ugu horeysay gaaloodiya lagu martiqaado xafladii ugu horeysay lagu martiqaaday gaaloodidii annaga yaa meli sidaas aynoo balana dadkana waynu ka biyayanahay oo waynu ka baliyayanahay oo waynu ka gaabinaye hargeysana biyaheeda sidaynu ka dhahay waynu ognahay hawdkiina waynu ognahay aada ha looga hawlgalo oo biyaha hargeysa hakrashaa ku jirteen aada iyo aad ha loo qoto baaro sida xaafadani maalin qaar baa mudaharaa dhigayay maxaa ka dhigaysaan biyo la-aan ilaa waddanka soo gala kuwaan cabid balka war haddana juuqaan horani juuq ma naqaaneen hadalka ma naqaaneen haddii la yidhaha galbaddaa shubkaa baris baa boqon doolan inaynu ka baktina iyo inaynu siisano mooyaane sheeko kale ma hirno dadka kale way girgishaano way damqadaano way yacyaacaan waxay yeelaysaan yacyaacana yaan laydinka badinayo haddii baydmaya dee war xaggana ha la eegadaa annagu markaanu golaa joogno waa hadallaa laakiin xagga shacabkeenu ma yaqaano sidaa haddii baydmaayo dawladaha laysu tuso waxaad qabto in cabtaaba dee la mooyaan qisabada soo wada gaadha waa loo maray sidaa halkaasaasaa kusoo gabagabaynayaa haddii lahab naxariistee calisayada odhan jiray war sida dadka feyralqaadka oo dawarsiga barta waxaa xafiisyada yaan laydinka badan xafiisyada marmara waxay yeeshaan waxaa weeyaan wadaada qur-aanka qaar aqooniyo mawlidka ayaa la yidhi akri kitaabkan akri shan ilaa yaa karimayna albadaadiya u ekaysiin waynu ekaysiinaynaa allah inaga yahayna rag iyo dumar halkan maanta waxaa la isugu yimid oo muwaafaqaadkana u sameeyeen madaxda gaaroodii
ururka oo ka soo wareegay oo gaadhay 18 sannadood waxa weeye waxaan salaamayaa ururka dadkiisa qurba joogta iyo qolqol joogta labadaba rag iyo dumar waxay sameeyeen wax wanaagsan oo ay waddankooda iyo dalkooda iyo ummaddoodaba wax ugu tareen hambaliyo ciddii kasta ee aasaastay ururkaasina wax wanaagsan bay aasaastay waxa weeye dalkiina iyo dadkiina waa idiin baahayn sidii hore iyo si kasii daran ba idinku baahayn maantuu dalkii wanaagsan wuu nabad qabaa abaaribuu ilaahay ka jabiyey horumar baa la samaynayaa biyayow baa la xidhayaa mashaariic baa la samaynayaa contributionkii aa ku bixin jirteen $5 iyo $10 waxaan jeclayna maanta $10 ku bixisa oo wax muuqda samaysaan oo u qalma magaca 18 sannadood jiray oo u qalma magaca gaaroodi waa meelaha dalkeena ugu wanaagsan ee qiimaha badan leh waxaan idinkula talinayaa inaad dadaalka halkaa ka sii wadaan allana ha idinku barbar galo wax wanaagsan baa samayseen insha allahu halkaa iyo horumar baan idinka rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa sidii marka hore la sheegay waxaan u haystay inaana ku jirin oo xagga dambaan siyar maaragtay gaabini waxaan inta aan filayaa intaan ku bilaabo salaanta iyo mahadnaqa dhammaan inta ka soo qayb gashay waxaa marka meesha fadhiday aada loo xusay hablaha gaaroodi oon filayay marka waayadan dambe inay haddaanay la sinayn kaba magac roon marka loo eego gaaroodi marka halka ayagaad baan runtii u salaamaya waxa kale oo aan iyam taariikhda sooyaalka dib ugu noqonaya maadaama ay kusoo boodo ahayd waxaan filayaa gaaroodi markii aynu aasaasaynay inaanu marka hore baryo inuu ahaa inuu isbarasho xubnaha markaa ku kala filiqsanaa qaaradaha adduunka uu ahaa 2001 markii aanu kusoo biiraynay waxaan filayaa dadkii ku jiray oo runtii tiro kooban 5 qaaradood inay matalayeen safiirro joogay ahaayeen waxaa muddadaa la isbartay dadkeenna ku filiqsan caalamku sida ay tahay aqoontooda mid waxbarasho ta dulqaad tooda bixineed tooda dhigaal iyo tooda kartida inta ay u leeyihiin dadka iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo intaba deegaanka intuu leeyihiin bay runtii ahayd waxaan filayaa berigaa waxaa caadaha ahaan jirtay in guddoomiyuhuna uu noqdo qurbajoog xagga gudahana waxaa la bidi jiray xagga malaha iyo aaminnimado waxay khasnajigaa joogi jiray laakiin khasnajiga halka jooga wuxuu ka awood iyo kartiba badnaa runtii ninka qurbaha jooga ee guddoomiyaha ah waxaan raggaa ka xusayaa rashiid baa imaka la sheego cismaan shide ilaa khayra siiyo raggii ugu horreeyey joogay oo aan soo marin khasnaji oo keliya ee markii dambana in badan ka ahaa guddigii auditka commissionka doorashooyinka waxaan ka xusayaa oo kale omar baa joogay imaka malaha canada ku noqday xuseen dheeraa joogay maxamuud yuusuf muusaa joogay cabdiraxmaan quraaraa joogay waxaa joogay haddii ilaahay kuu rooyoon ilaabaya cabdiwahaab janagalaa joogay cabdiqaadir dhegoweyna ayaa joogay rag runtii mudakar ahaabaa gudaha joogay oo soo tabi jiray had iyo jeer xaaladdu waxay tahay waxaan xasuusanaa maalintii uu cigaal dhintay iyadoo qaaradaha la jooga aada looga tabiyey markaasaa warka waxa soo gudbiyey cabdiqaadir informationka markaa cigaal dhintay waxaa loo haystay meesha in lagu kala tego markaasuu yidhi haw baqanina way hagaagaysahay jananka ciidanka markaa waxaa markaa ma ahayn oo keliya runtii inay ka warramaan waayaha xaqiiqda ah ee jira buu ahaa websiteya may jirin facebook muu jirin twitterna may jirin intaba isaga ayaa runtii inuu ahaa dad dakaatiro waaweyn baa joogay waxaa jira niman qoraalada ilaahay hibo ku siiyey oo af soomaaliga xataa ereyada qaarkood leh waxaa laga yaaba imarkaynu hor fadhiyo aynaan oqon oo uu ka mid yahay runtii toono oo beriga qorti cismaan xoog baa isaguna runtii joogay oo kanada kasoo nin jaamac cali jaamac loohan jiro isaguna kanada kasoo geli jiray baa joogay nin suugaanta erey kastoo sheegaan gabay ku tuumi jiray nin madaxa loohan jiro columbus ohio iyo kasoo geli jiray raggii runtii runtii aan ka xusto marka laga tago cismaan tamaandhe iyo raggaa runtii oo gabayada ku tusugi jiray u malayn maayeen wax badan aan ka tegay laakiin aan dib ugu yar noqdo malaa 18 gurad waxay macna samaynaysaa mashruucii koowaad ee gaaroodi layliha loo sameeyey guddiga mashaariicda
waxa loo codeynayay in hal computer iskuulka maxamuud axmed cali loo iibiyo iyo in la kafaalo qaato iskuulka saddexdii labadaas oo marka awoodoodu waxay taagneed computer ay loo iibino iskuulka maxamuud axmed cali mashruucii waxa ku guulaystay markii loo codeeyay in la kafaalo qaato iskuulka boardingka ee saddexdii haddaynu malaha isu geyno kharashka ku baxay tan iyo maalintaana malaayiin doolar way gaaraysaa marka loo eego mid si toosa iyo mid dadbanba marka la eego runtii waxaynu ka soo qaadnay kaalin hal inanimar ay ku jirtay oo laleeyahay hablaha loo sameeyo gobo gaara iyo talo gaaroodii ma ka mid noqonaya oo nimanka riboodkoodii akhriyay inta ka hor halkan aan soo maray waxaan soo akhriyay ribood uu soo diray cabdiraxmaan quraale oo jaamacadda hargeysa tiradeeda kaga jirto 3 arday oo keliya ay yihiin waaga ayaynu kaga jirnay intaasoo dhan wuxuu la soo yaabku la soo qaatay aynu soo marnay inaynu soo kobcinay isbarashada dhexdeena inaynu barano qaabka wax loo bixiyo inaynu barano qadiyad wuxuu dhibaanku ilaahay khayr siiyay aanu aad looga bartay markii dambe calisan yaro oo ahaa qaabka dawarsiga marka balaa eediska dawarsiga aynu ka baday proposal writing iyo qaabka maaragtay loo galo iyadoo laftigeedana aynu ka galay waxaan eegayay imaka 2003 $4,000 ee ugu horreeyay ee wadada cad lagu bilaabayay oo lagu soo hagaajiyay cabdiqaadir iyo cabdiwahaab janno kale iyo injineer waa oo in la bilaabo beriga wadada markii la jirjiray waa $2,000 xataa waxay dareenka kobcinaysay in waxyaalaha loo kaco ha noqoto iskuulka iyo waxbarashada ha noqoto wadooyinka ha noqoto isku xidhka ha noqoto tacliinta sida wax loo bixiyay jaamacadaha iyo ha noqoto inaga naftigeedu sidaynu soo baranay iyo intaa iyo in ka badan iyo sida waxay ahayd baa filaya ururkii ugu horreeyay ee isdiiwaan geliya ee ururnimo isu diiwaan geliya marka daqiiqa 2003 June ayuu ahaa markii la diiwaan geliyay waxa gudoomiye ka ah naxariistii janno ka marabi usoo duceeyay cadda gudeelahay naxariis janno ka yahay naxariis janno ka waraabiyo waxaan filayaa de gudoomiyaashii marka waxaan ka arkayaa maxaa jooga Xuseen Xasan halkan isagoo ku dhumanaya ayaa jooga oo runtii ahaa $20 baa la iska qaadi jiray fariisinka qofka wakiil ninkii 60 lagaga dhigay wuxuu ahaa Xuseen buu ahaa in markii dambe laga qaado ardayduna waa accepted bay ahayd waa laga saari jiray waxaa taariikh badan baa ururkeeda ku duugan cajalado badan baa laga duubay deegaano badan baynu soo marnay intaasoo dhan waxay u baahan yihiin in cajaladihii wixii aynu ka soo duubnay suuqeeno documentary ay dadku daawadaan runtii aan ka tegay intii aan ka tegayna waxaa fadhiya saaxiibada xidhoodka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh والسلام يا مدشة شرفت يا كرامة له تلقي قالق والسلام يا جارودي استديتون جورد أكسوري تي أساس كينا أديات منهم بليين يا جماعة أنا قاعد دمت قاعد إحنا هذا شعلا هاي رجعي ويجود دالي وأوركنا أساسي والرب بدنا كلنا سميه إن كسي وضع هوشة سيل المعوان ويسيب بديان وأيو maxaan ku dhaday dumarku hadii iyo carruurta hadii jeer waxay u baahan yihiin inay ragooda garab taagnaadaan ragga iyagu laakiin waxay moodaa inay yaro kala daadsan yihiin inta ururada gaaroodii iyo ururada mooyaane inta kale ganacsatadu aad uguma soo jeedo deegaanka shalayta waxaan u baxay salaxley ilaa iyo tuuliyo badan oo aanan garanaynin waxay u eg tahay sida meeshu asaaskii adigu ilaa 500 sanadood ka hor ilaa imika isku sibaa loo nool yahay marka waxaynu u baahanahay markaa in la beero dhulka in dadka wax la fahamsiiyo in biyaha la qabto in dadka la caawiyo dadka waynu u baahanay dadka miyiga waayo xoolahooda ayaynu imika cunaynaa meel kasta magaaladan haddii aan xoolahooda iyo caanahooda lacab ahayn dee laguma noolaanayo marka inaan la sii ganacsatadeeda iyo ragga iyaga dawladda ku jira annaga cashuurtana laguma dhaafo aqal hadday tahay cashuurta waa laga qaada islaamka tamaagada iibisa waa laga qaada maxaa markaa inaga inooga soo qaadi weydeen inaynu horumar dalkeena biyaha niloo geliyo dadkeena la caawiyo nimadeena shaqaad la siiyo waxay ku dhacday ina maxaan ku dhintee aynu ka socnaano waddanka aad iyo aadna dhammaan waan idin salaamayaa canaanta haddana dugsiga badiyina raalli ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هو سلام يا مرت شرفته. هل كان دوحهم بيا لا إلا هم بليو جارودي. تاريخ ده مقله وعبد الفتاح كهد لاي. سيدا كم وقتها أورور كجارودي وحكوب العمي. فورم تدخل كوشا كيستان ويسكوحك ورايستان. في حدود بقى مغردين فيسبوك أساسان. لكن sida Facebook ku bilaabmay meel xogta dadka gudaha joogiyo
dadkeennii kala biliqsanaa ay xogta isku weydaarsadaan hadday siyaasadta iyo hadday dhaqanta iyo hadday dhaqaalo tahayba wax badanna waa laga baran jiro. dad badan baa consumerska ahaa oo aan iyagu waxa laga yaabaa fikrada ku daraysan jirin laakiintiise akhriyi jiray oo maali jiray xogta iyo warka iyo aqoonta dadka kale ka imanaysa. tallaabadii labaad ee uu qaaday Gaaroodi waxay ahayd inuu mashaariic horumarineed oo waxbarashada ah iyo ilaa maanta intaynu aragno noocyo kala duwan oo galay. waxaan filayaa inaan ku talinayaa laba arrimood un baynu u baahannahay inaynu imika eegno. ta koowaad dib u dhalashadii Gaaroodi inaynu dhahno oo Gaaroodi dib u dhasho. sida ugu dib ugu dhalanayaana waxa weeyaan kow in fox loo sameeyo in waayo sababtoo ah wax kasta ma qaban kara Gaaroodi, laakiin in hal ama laba shay lagu soo koobo wuxuu qabanayo. tusaale ahaan waxbarashada iyo biyaha oo kale. dabadeetana taas dib u dhalashadiisa ay xoogga saarta haddii ilaahay raado insha allah. iyo talabaad oo ah taariikhda dheer ee Gaaroodi in la qoro si hadhowta jiilasha dambe ay u akhristaan iyagana ay dhiirigelin ugu noqoto. dadkii shaqadan soo qabtay ee Gaaroodi ama kuwii asaasay, kuwii guddoomiyaasha ka soo noqday, dadkii wax soo bixiyey, iyagana ay xus iyo aqoonsi ugu noqoto. in taariikhdoodii la qoro, buug laga sameeyo, deetana hiigsina loo sameeyo waxa uu doonayo ururku inuu hiigsado. labadaa qodob baan runtii ku talin lahaa. waana bogaadinaynaa dee cid kasta oo shaqo ka soo qabatay. innaga magaceeday dee ku qabanaysay, carruurteennay waxbarayeen, waqtigoodii bay geliyeen. inaan innaguna aqoonsano oo ku bogaadino oo ugu mahadnaqno oo ugu ogaano, ilaahayna u weydiino in ilaahay aakhiro xasanaadka maalinta yawmalqiyaamo uu ugu daro oo sadaqada ay waqtigooda geliyeen ay dadkoodii wax tareen. waxa weeyaan sadaqadu waxay ka bilaabantaa gurigaagay ka bilaabantaa. haddaad dhaqan eegto iyo xadaarad, haddaad diin eegto, buug kastoo akhridaa wuxuu kuu sheegaya waxaad bixinaysaa inay kasoo bilaabanto, inay gunta kasoo bilaabanto. marka inuu qofku walaaladii iyo ehelkii iyo ilmaadeeradii taageero oo ay wanaagga isku kaashadaan oo khayrka isku kaashadaan, ay waxbixinta isku kaashadaan, oo caafimaadka iyo horumarka iyo dhaqaalaha sidii dadkooda loo dhisi lahaa ee wax loo barla carruurtooda ay isku kaashadaan. waa wax runtii lagu faano, waana meelaha ay qabyaaladu ka fiican tahay. Gaaroodi waxaan odhan karnaa waa ururka keliyaata ee direction fiican Somaliland oo dhan haddaad eegto ee horseed u noqday meelihii qabiiladu ay ku kulmayeen amaba urradii qabiiladu ay samaynayeen inuu energygii iyo caqligii iyo kartidii dadka wax wanaagsan ku jiheeyey. waxaa laga yaabaa inteenan oo dhammiin siyaasad iyo aragti iyo fikrad lagu kala duwanaado, laakiin inankeena taagta daran aan taageerno, iskuul aan dhisno, wadda aan waxgelinno, deegaanka aynu ka soo jeedno baahidiisa aan ka hadalno oo sheegno, aan qorno, meel kastay nala gasho aan la galno. intaas iskuma khilaafayno. marka taa aan ka shaqayno. Gaaroodina waan bogaadinaynaa. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa Gaaroodi iyo maamulkiisaba waan salaamayaa. waxaa kaloo salaamayaa madax dhaqameedka ay ugu sarreeyaan salaadiintu, cuqaasha, waxgaradka, aqoonyahanka, ganacsatada, haweenka qaaliga ah, allahumma salli ala maxamed, dhalinyarada, garsoorayaasha, dhammaantiin waan idin wada salaamaya. madashani maanta waxay oon jeclaan lahaa inay u badato dee sunno siyaasadeed bay iska noqotay axsaabtu inay mar hadday fadhiyaan soo galaan. madasha waxay maanta inaanu ku baranno guddoomiyayaashii ururka Gaaroodi waxqabadkoodii iyo halgankii dheeraa ay soo mareen. ilaahay baan ka dhigana laakiin waanu nimid. anigu jaanis baan sugayey inaan ururka Gaaroodi u mahadnaqo, waayo urur Gaaroodi wuxuu markaad xagga astaamihiisa la eegto waxaad moodaa inuu basically sidii Somaliland u bilaabantay oo kale inuu bilaabmay. Commissioner Cabdifatax baa marka wuxuu xasuusiyey markaa uu lahaa computer baan contributionkiisa isku daraynay. waxay xasuusay wasiir ka mid ah wasiirada Somaliland, I think inuu kii ugu horreeyay ahaa, waqti uu yidhi Somaliland maanta guul bay gaadhay, waxaa la geliyey computerka
ayaa la soo gooyay dadweynuhu soo geliyey ibraahim sheekh madar ku ahaa yuusuf sheekh ibraahim sheekh madar ku ahaa marka waxaad arkaysaa qiimaha uu combyutarku waktigaa taagnaa waxaan xasuustaa ururka gaaroodu wuxuu gaadhay heer dadka somaliland degaa ay aaminsanaayeen inay hay-adda yihiin. waxaan xasuustaa waqtiyada ka mid a anigoo jaamacadda ku jira in dhowr iyo toban inan bay ka bixin jireen jaamacadda. ardayda jaamacadda waxay u haysteen gaaroodi inay hay-ad tahay, hay-ad caalamiya inay tahay, hay-ad caalamiya inay tahay bay aaminsanaayeen. warnimo hay-addaas maxay anaga noo ayay oran jireen dadka kale ku jira jaamacaddu. marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hambalyeynayaa ururka gaaroodi. xisbi ahaan waanu barbar taaganahay, hadday contribution tahay iyo hadday dhiirigelin tahayba mar walba waanu barbar taaganahay. aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xubnaha sharafta leh ee isugu jira hoggaan dhaqameedka, siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo dhammaan intii maamuleysay ururka gaaroodi ee aan ka mid kahayba waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta maanta waxaynu u dabaaldegaynaa 18 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ururka gaaroodi oo runtii ah urur wax badan ka qabtay deegaanada uu ka soo jeedo. taa waxba kaga noqon maayo. afhayeenkii kasbiga ucud ayaa aada iyo aada ugu dheeraaday. anigu halkan waxaan doonayaa un marka wax loo sanad guuro ay jirto had iyo jeeraale waxa wanaagsan ee dal lagu casuumo in sanad guurada wax lala yimaado oo la keeno qof waliba wixii uu sanad guurada ku dhiiri gelinayo. anigu siciid culay ahaan ururka gaaroodi waxaan ugu deeqay $10 sanad guuradooda ka soo wareegtay 18 guuradooda. dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsantiin. waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. waxaanu kusoo dhawaynayaa guddoomiyaha xogeyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye jaamac shabeel. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد من الليالي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قالوا ما عمل دير قاري وما عمل دير قاري وما على قطيري كستوم جبت دي مركي القطيري وقولي قطيري البرنافيه طريق يبقى البيضة يقولوا قالوا دي يكسلوا يقولوا والله قالوا له دبل وسيلها قالوا له وسيلوها أولي ما حكاية لي البرنافيه وحيقولوا موعد أرض إيراني وبيل قالي ويقولوا قطيري الطريق اللي توكلي مقع حبلها قالوا ذي أنا يسوي قالوا بحيها وأربط إلي وكذا وتنتفينا حبلها كان يوم تكسري مقع بحي يتنافي قالي غير واحد بوتا وهذا يهبلي وتطلع قطيدة إلى الطريق يا حامد مريا لو طلب فلان مريا اليوميا وكلم يوقف الطريق أو فلان يسوق وهاي وين بركة مريا سيرك المنتج يحسدوا كلام بلطها وليه هذا بدي هاي وين مريا يعني أنتوا محكمكم ويلوس يلوك محكمكم ويملك عشان هذا أي برتين وقالوا دي وجا برتين أي هالكلام قالي حكومة الكوميري قالوا لي وحوي بيتفتي سكول شوي كتر قاعدين إما كلا مثالية أنا المطري شتاء السنة هاول السبع قالوا لي قلت الله هاول كستول قالوا وبالعمرة هاول كستول قالوا بالعمرة
waxay ku dambeynaysaa gacanta xukuumaddu inay dhamaystirto laakiin gaaloodu waxaa laga rabaa inay bilaabaan oo waxay ku bilaabayaan ay la yimaadaan marka waxa ay bilaabaan ay la yimaadaan dowladda ay daba qabanaysa waa ogtiina urur dambaa inoo soo baxay oo gaaloodigaa ka duulayay isaguna oo haldoor laylaa school technical bay yidhaahdeen halkan aynu ka dhisno hindise aada iyo aada u weyn buu ahaa oo qofku isoonayo mala dhalinyaradani waxay waa laabo ka cuuxood oo shan boqol kunoo doolar iyo marka laga hadlayo iyo qaalaha ururayo waa laba arrimood aada u kala fog hayaan waa jira isaguna maanta laakiin iskuulkii waa dhamaystiranyahay iskuulki waa tuu dhamaystiranyahay finishingkii baa u haday waxaa ku xigan waxa waa qalabkii farsamada ee lagu baranayay oo loo soo iibiyo loo keeno isaguna sidii insha allahu tacaala dhaqsuu imanaya halkaa waxaa kasoo bixi doonta waa aragteen magaalada dhismayaasha ka socda ajanabi baa ka wada shaqeeya dhismayaasha simple because caruurteedii waxyaala wax la bara anuu garan maayo oo loo dhigo haddaa waxyaala wax loo dhigo garan maayo layabeli waayo xataa haddii theory hagaagsan la siiyo oo theory hagaagsan ay bartaan si dhib yar bay ku baran lahayd farsamada ay ku keeni lahayd laakiin waxay sabcaa theory hagaagsan inaa la siiyo waxaan salo wuxuu noqon doonaa iskuulkaasi iskuul taariikhda kala hawsha biyaha ee iminka ururka gaaloodi uu ka dhigtay yoolka waxaan idinku bishaaraynayaa 150 sano ka hor ijawar qod maanta aynu qodayna 2018 إلى 6 مليون دولار إنه بيلعبوا مشروع يقصوا هيكل الجوية وسيلة هذا الشيء ولا سيكل يروي قالوا واحد الهاي كبيلابا دولة يكون طبيب وشارعوا سيكل ويت هاي ملكم ملايين سيكل دولة هنا يبيلوا دولة هاي لا يكسروا وكسر عكس هذا أي كلام أمية والعقف ألفر بضبط كم حيسة وحرتين يومين الجيسة ورابيو هذه أول هذا وهالجيسة ورابيو بيحركاس وحسسنا كم في مساريات والله يروحوا يستحملون والله ورجوا بلاد دولار سنة الدبيع اللي سنة بلاد يا عوشة تكلم يرجعوا بسبب صعولية قالوا نروح له ويرسى حتى هو يتاسيه هل توصلوا قالوا يروحوا بالها صوت روح كانوا الشيء يو ولي من إذا قالوا بريء يجي يبدو بيالك مركز سال العلو مركز إذا قالوا بريء ليش أنت إذا قالوا بدو بيالك هاي وما هاي سكول كانوا بس قالوا بالأشياء قال أيوة تيجي بوسان سكول وين تيجي روح له ماشي سحاب ما تشوقي وين صار مقدار العكس ما أنت سال العلو قالوا ما أنت والكل قلبك الدولة لها كفارة قاعدة قالوا لك قالوا ذو والعروض تبارك حقه ضروك عور هو ضرب يدش الحاجة والحاجة اللي كشجعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته